waxaa maanta marka le magaalada Boorama ka qarxay mudaharaad kooban oo lagu taageerayo midnimada iyo mowqifka shacabka deegaanadaasi. mudaharaadkaasi oo koobnaya ciidamada aaradu isla markiiba xog u kala ceyriyeen mid ka mid ah dhalinyaradii hogaaminaysay kacdoonka deegaanadaasi. kacdoonkan ka socda magaalada Boorama ayaa waxa uu imanaya xilli Suudaan ka mid ah Suudaamada magaalada Boorama uu sheegay inuu ka goostay dalkani Somaliland. Waa Saciid Maxamed Boos, wararka qarsoon magaalada Hargeysa.